samir dhaqaaqdo dhulkeedii ka dhoofto dhibta aan dareemay dhifiyo naadir weeye had u dhugo dhulka ayaryaanu kula noqon dhulka hoyo dhayaha u soo celi magaalada Sayda waa magaalo xeebeed taariikhi ah oo ka mid ah gobolka Awdal waqooyiga dalka Soomaaliya. magaaladu waxay ku taalaa waqooyiga bari ee gobolka Awdal waxayna aad ugu dhowdahay wadanka Djibouti waxayna qiyaastu jirtaa 120 kiiloomitir. magaalada Sayda oo ka mid ah magaalooyinka ugu qadiimsan ayaa waqti xaadirkan magaalo madax u ah gobolka Salal ee Somaliland. Sayda waxaa loo aqoonsan yahay inay jirtay soo bixitaankii diinta Islaamka ka hor midaas oo ka dhigaysa goobaha ugu taariikhda dheer qaaradda Afrika iyadoo ay ku yaalaan meelo fara badan oo taariikhi ah hase yeeshee ka turjumaya taariikhda dheer ee qaaradda Afrika gaar ahaan tan Soomaalida balse dhammaan dhismayaashaasi waxay noqdeen kuwo burburay oo aan helin ilaalintii iyo dayactirkii ay uga baahnaayeen shacabka iyo dhanka dowladaba waana taariikh ku dhow inay tirtiranto. muuqaalkan oo aad daawanaysaan waa mid ka turjumaya burburka baan ee soo gaaray dhammaan dhismayaashii taariikhiga ah ee ku yaalay magaalada Sayda tan iyo horaantii soo bixitaankii diinta Islaamka. magaalada Sayda waxay ahayd hoy waxbarasho ganacsi dhaqan ilbaxnimo xadaarad iyo maamul boqortooyo. magaalada Sayda waxaa soo maray boqortooyooyin gaaraya ilaa iyo 4 boqortooyo waxayna kala ahaayeen boqortooyadii Ingiriiska boqortooyadii Yifana boqortooyadii Awdal iyo boqortooyadii Cusmaaniyiinta. magaalada Sayda waxaa ka muuqda aasaartii ay ka kala tageen boqortooyooyinkaasi waxaana ugu weyn boqortooyada Cusmaaniyiinta oo ka tagtay dekad iyo masjidka ugu qadiimsan ee ku yaala magaalada Sayda. qiyaastii qarnigii 7aad ilaa iyo qarnigii 8aad ayaa diinta Islaamka aad ugu fiday magaalada Sayda oo waqti kooban ku noqotay hoyga diinta ee guud ahaan qaaradda Afrika gaar ahaan gobolka Geeska Afrika. dhanka kale boqortooyada Ingiriiska iyaduna waxay ka tagtay qaar ka mid ah aasaarta ku taala magaalada Sayda oo ay ka mid yihiin xafiisyadii ay ku shaqayn jirtay boqortooyadaasi. sidoo kale waxaa xusid mudan in magaalada Sayda uu ku yaalay madxaf lagu kaydiyo taariikhda Geeska Afrika balse iminka madxafkaasi waa uu baaba'ay waxa uuna dugaal u yahay qashinka iyo xoolaha nool. barnaamijkan waxaa idiin soo tabinayay idiin soo gudbinaya anigoo Cabdisamad Cabdullaahi Cali Suldaan. barnaamijkan